shirweyne ballaaran oo maalmahanba ka socday magaalada Woodwood ayaa lagu soo gabagabeeyay maanta magaaladaasi Woodwood. Shirkan oo ah shir ay ka soo qayb galeen beelaha dhulbahante marka laga reebo beesha Maxamuud Garaad oo iyagoo horey u qabsaday shirweyne kan oo kala ah. Shirkani ayaa laga soo saaray qodobo muhiim u ah shirweynaha lagu ballansan yahay inuu ka dhaco degmada Taleex ee gobolka Sool. Shirkani ayaa daba socday sida cuqaasha beesha Maxamuud Garaad ay iskaga mid uga wada noqdeen in la taageero shirka Taleex isla markaasina fariin culus loogu diro isimada deegaanada SSC in bulshada xilligani ay u soo jeesatay arrimaheeda. waxaana dhammaan goobtaasi ka hadlay shirka lagu qabtay ee magaalada Woodwood. dhammaan beelihii ka soo qayb galay shirkaasi ka socday magaalada Woodwood ee maanta lagu soo gabagabeeyay, waxaana ay beel waliba ay ku muujisay taageeradeeda ay u hayso shirka Khaatuma 2 iyo taageerada ay u hayso dhammaan deegaanada SSC dadka ku nool iyo dalkaba. ilaahay hayna waafajiyo Khaatumada. waxaynu isugu soo noqonnay maalintii labaad shirka tanaasulka iyo taageerada shirweynaha Khaatuma 2. waxaan marka ugu horeysa ku soo dhaweynayaa inuu aayadii quraanka inoogu furo Cabdiraxmaan Ciise. Cabdiraxmaan ku soo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا ليال بعد الحمد لله سبحانه وتعالى وحان مهد إيو صلاة شرفت بلد تحية الإسلام كانوا سوتشيدنية خيارته إيو مضنياشة إيو وفود شرفت له وقال علماء الدين اللي يروا أقوياهن قلياها الدبدة هويوينك dhammaan ururada bulshada oo dhan mahad iyo sharaf ayaan u soo celinayaa. waxaan kaloo dee kulli kelimadan aan ku leeyahay waxaynu isxusuusinaynaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala. cabsida ilaahay waxa way maadaama dad muslimiina nahay waxa aynu ku noolnahay kuna dhimanaynaa akhriya adduun ballibaantaynu ku jirtaa inaynu ilaahay ka cabsano. taasoo macnaheedu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray alle subxaanahu wa tacaala aynu la nimaadno, wuxuu inaga reeba inaan ka hadhno. haddii ilaahay aan ka cabsano fawaa'ida laga helo adduunyada intaan aakhiro la gaadhin waxa weeye in arrimaheen oo dhan fudulaanayaan oo ilaahay u aqbalayo. yaa ayuha aladiina ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waman yattaqi llaha yajcal lahu min amri yusra. ninkii ilaahay ka baqa ilaahay arrimihiisa o dhan fudayd buu ka dhigaya. marka waxa weeye wanaagga iyo talada iyo waxyaalaha aynu qabsanayno haddii horumarkeena waa inaynu u kaalmaysanaa allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa. haddaynan cibaadada alle waayo nabigeena ayaa wuxuu leeyahay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika. marka waa inaynu inaguna aynu u kaalmaysanaa waxyaalaha wanaagsan aynu qabanayno cibaadada ilaahi subxaanahu wa tacaala. waxaan kale oo inoo dardaarmayaa shayga midnimada la yidhaahdo waa shay sharciyan oo ilaaha subxaanahu wa tacaala uu maaragtay ummadda islaamka amray oo uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu. xariga ilaahay qasada bacda taqwada ilaahay hana kala tegina. waxaana la yidhi yadu llahi maca aljamaaca waman shadda shadda fi nnaar. gacanta ilaahay waxay la jirtaa jamaacada iyo midnimada. ninkii gaar noqdo oo kelin u baxana waxa weeye naarta unbuu la keliyoobaa. wainamaa yaakulu diibu ganamu lqaasiya. nebiguna wuxuu yidhi bahalku wuxuu cunaa ariga neefka luma ariga ka leexda ee goosanka noqda ayuu cunaa. marka qofkii haddii alla ka dhigayo yani midnimada iyo haddii lakada wada jirka ka leexda yani naar buu la keliyoobaa. naar ayuu la keliyoobaa. marka shayga midnimada leehayna oo ku dabaqayna islaamnimo iyo darisnimo iyo wada
waxa weeye waa islaamnimo iyo derisnimo iyo wada dhalasho. waxaan filayaa dee intiiba inay naga dhaxayso waayo waa inta geedkan iyo isugu keentay laali laba dhaxal isku hayo dhaxal wadaagayana maxay isu yihiin lama yidhaahdo. de waxa weeye dad tala iyo dan isugu yimi waa dad wada dhashay, waana dad wada yaala, waana dad islaam wado islaamnima ka dhaxayso. marka waxa weeye taas annagoo ka duulina ayaa waxaa la doonayaa mar walba in shayga midnimada la yidhaahdo iyadana inaan loo midoobeynin in ilaahay la caasiyo, in cid la dulmiyo, in cid hantidooda la qaado, in cid dhiigooda la daadiyo aynan hadalkeennu hayn ee aynu hadalkeennu yahay inaynu inagu noolaano sidii aynu noolaan lahayn ka tashanno oo wanaaga oo masaalixa. ilaahayna wuxuu leeyahay maaragtay isu kaalmaysta watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan. wanaaga iyo cabsida ilaahay isu kaalmaysta iyo horumarka, hana isu kaalmaysanin collaytanka iyo xumaatada ha isu kaalmaysanin. marka insha allahu tacaala intaas ayaan maaragtay inagu baraarujinayaa, waayo nebigeenu wuxuu yaqoon hadduu meel isugu yimaado oo ilaahay ayna isxusuusin yani meesha waxay kala tagaan tiiraayo iyo khasaare ayay kala tagaan. marka insha allahu tacaala waa fardulkifaaya aynu iska ridayno. dee faralka ile laba qayso, fardulcayn iyo fardulkifaaya uqaysama. fardulkifaaya waxa weeye waa shayga marka qola qaybi la timaado ay qola kale dembigu ka dhacayo. waltakum minkum ummatan yadcuuna ila alkhayr ya'muruna bilmacruuf wa yanhawna cani lmunkar. halaynin keeno koox dadka wanaag iyo khayrka ugu yeedhaysa, macruufta amraysa, xumaatadana ka reebaysa. insha allahu tacaala dee qoladan hadda iminka suukan iyo dhahoyaayo xaggaa ka timi khaatimadan ka soo bilaabatay oo hadda shirka hogaaminaysana inay minkum taa noqonayaan ummadda gaarka ah dadka khayrka ugu yeedhaysa. saasa insha allah u rajeynay. aada iyo aad ayuu umahadsan yahay maxamed ciise. waxaan idin xasuusinayaa in kolla salaadiina iska soo dhowdahay, waktiga inaynu soo koobno oo aynu bal intii aan ka gaari karno aynu ka gaadhno. waxaa shalayto galab shirkii ka hadlay ardayga reer woodwood. waxaan u gudbaynaa ardayga bahar same. waxaan ugu horumarinayaa caaqil daahir axmed cumar. caaqil kusoo dhawow. bismillahi raxmaan raxiim. marka hore golahan sharafta leh, duqaasha, waxgaradka, culimada, dhallinyarada, gabdhaha, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka xiga mahad ilaahay baa leh. waxaan ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaaha nimcadan aynu dhex joogno iyo nabadgelyada isugu keenay, taas oo ay yani ka mid tahay inaynu danaheena ka tashanno inoo suuro geliyey. mahad ilaahay baynu u celinaynaa. marka xiga waxaa xusid mudan deegaanka gogasha dhigay ee rag iyo dumar halganka iyo soo jeedka waktiga badan ku lumiyey, u dhawar adeygay inay tolkood isugu yimaadaan halkaa, danahooda kaga tashadaan, juudiga badan iyo waktiga qaaligaa ku lumiyey. kuwaana waa mahadnaqaynaa. marka xiga qolada jaaliyadda ama yani dibadda ka timi hawshan soo aabushay, inta ay mareen iyo inta ay dib jireen iyo inta kanaa cuntay iyo intay qardo mareen aynu ognahay. carruurtoodii iyo maatadoodii iyo shaqadoodii wixiiba uga yimi inay tolkood wax u qabtaan, toosiyaan oo baraarujiyaan. kuwaana mahad baanu celin. inta iiday ee ra'yigaa wanaagsan ayday isgarab taagtani mahad baanu celin. intaa kadib waxaa la yidhi hadalku ha yaraado waxna ha laga garto, badnaantiisu naf male. haddii hadalka qof yaqaan oo meesha aad doonaysay mara uu kaaga horeeyo, waxa uu u baahan yahay taageero unbuu u baahan yahay fekerka aad qabtid. ilaahay khayr ha siiyo.
annagu haddaanu nahay beesheeda bahararsame hadalka iyagu wuxuu ku dhan yahay hadalkii haybe cali guri yuu la mid yahay ee shalay ninbaa marka ninka ugu horeeya hadalka dhameeyo wuxuu odhan jiray meeshaad ka qaaday meesha hebel ka qaaday baan ka qaaday meesha hebel dhigayna waan dhigay inagu horta meeshii haybe ka qaaday baan ka qaadnay meeshuu dhigayna waa dhigay waxay ahayd marka nuxurka hadalka lasoo duuduubo taageerada shirka khaatumo two iyo ummaddu waa bini aadan fara badan oo dee wada dhashay laba maalin iseegtay iyo laba maalin ishoomayday iyo wax loo kala sheegay iyo xamaas guri waxa la reer waa ka dhintaa ragna wax kama soo qaado taasoo aynaan maanta wakti u hayn ayna habboontahay inayan inaga hadhayn danaheenna waaweyn wixii aynu liqi karana aynu liqno wixii aynu liqi kari weynana dib u dhigano waktigu habboon ka dhigano meeshii uu dhigay baanu dhignay taana sida aada maqasheen ama haddaan la maqlinba beesha bahararsame iyadoo ka duulaysa hawlaha soo aadan ama soconayay bishii ka horreysay bay shir isugu timi saax dheer 60 ergey baa la qabtay iyo 7 hawlwadeena garaadkaa u furay shirkaas dan dhulbahanta ka hadlabay waxay guddoomiyeen wax allaale wixii shirkaa khaatumo ku hagaagay danta dhulbahanta ku hagaagay dayaca iyo magaxxumada lagaga baxay dadkaa halgamaya ee qadiyadda inta u halgamaysa ay mooraalkooda dhisay haddaynu beesha baarsmana inay isbarbar taagno waxa dadka daarshilde dadkaa inaga maqanay hadeer baynu ognahay meelaha lagu soo sheegi magacay ku jiraan laakiin naga mid maahayn marka go-aanka iyagana kuma jiraan inta caadigae wada tashan karaysa baanu yaanu annagu ka hadal taasoo aan gogasho lahayn oo dib u noqosho lahayn waa maqlayni xantaada xinkeedaa kuu baxaalay dhulbaanta ama jid ha ahaato ama jawr ha ahaato balay reerka dee waxbaa laga sheegay horena waa looga sheegi jiray hadeerna waxba baan maqlayni qofka bini aadamka ah wuu khaldami karaa khalad waa ka dhici karaa annaga gudhayadu dee dareenkaas waa qabnaa waxaa la yidhi nacasnimada aad iska ogtahay fariidnimada kama dhacdo in wax naga sii noqdeen du dareenayanaba tolkaana cafiyo raalli anaga noqdo una noqon mayno oo u noqon mayno waxaa weeye haddaynu dhulbaansanahay waxaynu ognahay maanta ka hor sidii burbur u dhacay ummadaha kale waa tashadeen ama ha ku been ama ha ku badhaadheen mawqif ay iyagu leeyihiin bay qaateen innaga midhba meel buu cararay badhna meeshii buu iska taagnaaday waxbaba ma qaban maanta baynu isu nim waxaynu ognahay haddaad qarab sidato midh ku jiro midh quri ku jiro cidlana aada marayso dabna aada u baahato inaad midhka aad gelisid awood badan dugsi badan taxadir badan macnaha haddii midhkaasi kaa damo waxa weeye midh kale ma haysa dabna waad u baahata waxaa la mida shirkeenna maanta waa kii u horreeyey ee aynu isugu niman dhulbaahanta yidhahda aan dan qabsano adduunka o dhan baa laga maqan bini aadamku wayna eegaya dal iyo dabadba isagun baana laynagu qiimaynaya haddii aynu guntiga dhexda ku xidhanno waddada ku habboon marino ka sida xun wuxuu wada soo duno ka wax tirsanaya tanaasulo oo midhaa nooga soo baxaan dee wax jiraynu noqonayna adduunkuna waynu ogaanaya haddii ninba nin eego la ysku habsaamo
wixii adduunkao dhan eegaya cidla inagaga baaba'an mar dambaba soo qaadi kari maayo qofna qof dambe la soo qaadi kari maayo taa ha la ogaado sidaa awgeed waxaa la yidhi naasaxaaga waxaad ku garataa meesha calooshaada u badan tahay buu hadalka mariyaa waxaanu ku farxnay hadalladii golaa nooga horreeyey shalay intii aanu rabnay inaan la habsaamin waxaan dani ku jirin inaynu maanta waktiga inaga qaadin in waxa asaageen doonayo aynu iyo hanka u leeyahay aynu yeelano in haddii ilaahay xukmaayo aynu soo celino magaca lumay ee dayaca iyo darxumadu maanta aan ina sheegan karayn waxaanu go'aansanay warkaas waana war xaqiiqa wixii aanu khalad ma diidayna haddii dalku noo sheego ama wax naga khaldama inaad naga qarsaan oo taagan waxba ha u sheegina waa bahalima way iska aamusayaane ma rabno nimaadan khaladkiisa u sheegin ma rabtid baa lay ma rabtid waxaad talloo yahay in laysku sheego ka loo sheegaana inuu qabsoomo oo yidhaahdo yacni waa sax waa indiqaas sida wax ku hirgalaan waa sida waxaa la yidhi soomaalida wax ku maamada sidaynu yeellaa haddii xaalku yahay si la yeela lama garan waayo waxay la mid tahay sida kursiga marka taladu halkaa u taal waa sidee ku habboon yahay mikrofoonka xagga ujeeda dabayl bay leedahay xagga ujeeda dabayl bay xagga ujeeda saa sax ku yahay sida la isla gartaa waa sida talada saa loo garta waxaan leenahay taladeena aan ka saaro waxaan maqlayaa xil iyo kursi iyo waxbaa la hadalhay waxaa soomaalina waxa rogay oo kala geeyey marka shir la isugu yimaado sida shirarka ka maqlaayay nin kastoo qabli wuxuu horta anigu meesha maxaan ka noqonaya marka hore shagadee baan leeyahay hadduu taa u wacan isagu ama taa ka waayo wax dhabarkiisa u dhaqaaqay taana aan iska ilaalino hadday doonaan afar walaali ha wada qaadato waxa meesha yaalda waxaan leeyahay inagu dhulbaantanimaynu maanta rabno ta cadowgeenu ka naxayaa taa wey ta qiimaheena soo saaraysaa taa wey nin waliba wax badan oo cululubtay ha tuuro aayaha ha laga taliyo hadalka inta waxaan uga baxayaa waxaa iga dambeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore dee odaygu caaqilku waxba iima reebin allaala wuxuu ii reebay ma jiro marka xiga madasha shirka odayaasha waxgaradka gabdhaha wax allaale wixii madasha jooga waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xigta wixii hadda aanu beel ahaan u warbixin lahayn caaqilkaa dhambeeyey allaale wuxuu iiga tegay ma jiro waxaan keliya uunu kacay taageeradii labaad inaan ku taageero taageero labaadle sidaa uu sheegay intaa uu sheegay waxba kama bedela hadday shirka baarisama tahay haddii wixii la go-aansaday tahay haddii ay taageedirta dhulbahansa tahay intaa u sheegay weeye qodobka على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وعام آذب مع النقيا وأنا قد حينيا حول ورياشا شركي خاتمة وان كاقا قايب قريب لدن danahoodii uga yimi inay dhulbahante beeshar beeraha dhulbaanta dantiisa guud uga yimi caruurahoodii iyo xaasaskoodii iyo dantoodii gaarkaa u lumiyey gaarigay ka soo raxeen abdasababa ku tegay ceerigaabo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaana carabta waa ku maamaada shukran cala alwaajib iyagoo waajibkooda qabsanaya haddana waxaan dadkii gudaha joogay ee garaad lahaa ee caaqil lahaa ee ninkarbood lahaa ee siyaasi lahaa ee bulshada dhammaanta intana ay garan waayeen ay qabsan kari waayeen ay iyagu qabteen ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka in ilaahay ugu daro hawshaa waxaana ay qabteen
dadkoodii iyo bulshadoodii iyo muxuu ahaa dadkoodii ay u qabteen in miisaanka ilaahay xasanaadka miisaanka ilaahay ugu daraan ilaahay u baryeennaa. shirka ay beelaha dhulbaante ku yeesheen degmada Woodward 17 bishii 2011 oo ay si aada isugu turxaan bixiyeen iskuna saamixeen isla markaana ergadu isla fahantay islana qaadatay baahida loo qabo qabashada shirka Khaatuma 2 ee degmada Taleex. go'aamada shirka laga soo saaray kow waxay marka hore si buuxda u taageereen shirkii Taleex ee Khaatuma 2 ee hore u taageereen. laba waxay kaloo si buuxda u taageereen go'aamada ka soo baxay shirkii ay Taleex ku yeesheen beesha Maxamuud Gara. waxay go'aansadeen in dhammaan bulshaweynta dhulbaante u madax bannaan tahay go'aamada masiirkooda talo guddoonka iyo ducadana ay leeyihiin isimada loona dhaafo. waxaa kaloo la isla qaatay in shirka maarayntiisa loo daayo loogana dambeeyo guddida u xilsaaran. dabadiyo guudaha shirka degmada Woodward wuxuu ugu baaqayaa dhammaan beelaha dhulbaante in la dhowro la qadariyo la isbarbar taago muruq iyo maalba qabsoonida shirkaas lana iska ilaaliyo wixii carqalad keenaya. ilaalinta nabadgelyada shirka waxaa iska leh dhulbaanta weyne taladiisa waxaa iska leh dhulbaanta weyne fulintiisana waxaa iska leh dhulbaanta weyne. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. shirka ay beelaha dhulbaante ku yeesheen degmada Woodward 17 bishii 2011 oo ay si aada isugu turxaan bixiyeen iskuna saamixeen isla markaana ergadu isla fahantay islana qaadatay baahida loo qabo qabashada shirka Khaatuma 2 ee degmada Taleex. go'aamada shirka laga soo saaray kow waxay marka hore si buuxda u taageereen shirkii Taleex ee Khaatuma 2 ee hore u taageereen. laba waxay kaloo si buuxda u taageereen go'aamada ka soo baxay shirkii ay Taleex ku yeesheen beesha Maxamuud Gara. waxay go'aansadeen in dhammaan bulshaweynta dhulbaante u madax bannaan tahay go'aamada masiirkooda talo guddoonka iyo ducadana ay leeyihiin isimada loona dhaafo. waxaa kaloo la isla qaatay in shirka maarayntiisa loo daayo loogana dambeeyo guddida u xilsaaran. dabadiyo guudaha shirka degmada Woodward wuxuu ugu baaqayaa dhammaan beelaha dhulbaante in la dhowro la qadariyo la isbarbar taago muruq iyo maalba qabsoonida shirkaas lana iska ilaaliyo wixii carqalad keenaya. ilaalinta nabadgelyada shirka waxaa iska leh dhulbaanta weyne taladiisa waxaa iska leh dhulbaanta weyne fulintiisana waxaa iska leh dhulbaanta weyne. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. xamse xasan geele darwiish TV buuhoodle.